السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ogaasyada beesha Mareexaan oo shaaca ka qaaday shirqool ka dhacay Nairobi lagu dilay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan isla markaana ay ka dambeeyeen dilkiisa Axmed Madoobe iyo wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale dowladda Itoobiya oo faragelin qaawan ku sameysay mar kale madax banaanida Soomaaliya saraakiil militarina u dirtay magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kale dhaqdhaqaaq ka bilowday deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Somaliland oo xabsiga dhigtay wasiirkii hore ee beeraha ee Somaliland oo ka hor yimid heshiiskii uu Muuse Biixi la galay Abiy Ahmed iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo taageero u muujisay Shiinaha sheegtayna in Taiwan ay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka warbaahinta Banaadir Star Media oo diyaar garoobay oo dhameystiran isoo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta xiddigta Banaadir oo dhameystiran fadlan daawada xusuusna oo markasta xuska iyo xiriirka leh oo tuko salaada si ay ku soo gaaraan wararka warbixinada iyo xogaha degdega ee warbaahinta xiddigta Banaadir fadlan rukumo oo subscribe saaro channelkan lana wadaag asxaabtaada mahadsanid aan ku bilaabay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya lagu weysanaa wasiirkii hore ee ammaanka maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan in Janan lagu qaarajiyay shirqool ka dhacay gudaha caasimadda Kenya ee Nairobi sida uu warbaahinta gudaha u sheegay mid kamid ah ogaasyada beesha Mareexaan ee uu Janan ka soo jeedo wuxuu shaaca ka qaaday in Cabdirashiid Janan uu geeriyooday laguna dilay shirqool ay iska kaashadeen sirdoonka dalka Kenya iyo sidoo kale hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida uu shaaca ka qaaday ugaaskaasi inkastoo aanay warbaahinta madaxa banaan wali xaqiijin geerida iyo dilka Cabdirashiid Janan muddo ku siman hal toddobaad ayaa la weysan yahay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii hore ee amniga Jubbaland oo ay siyaasad ahaan is hayeen Axmed Madoobe dhawaanaha nasal dhigtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ugaaska u hadlay beesha Mareexaan wuxuu sheegay in Cabdirashiid Janan lagu dilay shirqool ay iska kaashadeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale wuxuu sheegay in la qariyay meydkiisa oo si hoose loo qaarajiyay isla markaana aan xitaa la helin meydkiisa oo aan raq iyo ruux toona laga hayn balse ay saraakiil sare ka soo xigteen geerida Cabdirashiid Janan iyo in la qaarajiyay sida uu ugaaskaasi ku dooday wuxuu sheegay in siyaasad ahaan ay Cabdirashiid Janan is hayeen Axmed Madoobe oo muddo dheer uu ku ahaa laf dhuun gashay kana hortaagnaa damaca Axmed Madoobe doonayo inuu kula wareego gacan ku haynta gobolka Gedo oo inta badan laga mucaaradsan yahay ugaasku wuxuu ku dooday in Axmed Madoobe uu ku taamayay in mar uu iska hor wareejiyo Cabdirashiid Janan ugu dambeyn uu ku guuleystay isagoo kaashanaya sirdoonka Kenya hase yeeshee wali ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijisay geerida Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii hore ee amniga Jubbaland oo dhawaanaha lagu weysanaa gudaha magaalada Nairobi cid markii ugu wardambeysana ku sugnaa bartamaha caasimadda Kenya ee Nairobi balse aan muddo toddobaad ah lahayn raqdiisa iyo ruuxdiisa ugu dambeynna ay ugaasyada iyo waxgaradka beesha uu ka soo jeedo ee Mareexaan shaaciyeen in la qaarajiyay sida ay iyagu ku doodeen Janan ayay siyaasad ahaan is hayeen Axmed Madoobe waxaana ay dhowr jeer ku dagaalameen gobolka Gedo iyadoo oo la dareensan yahay loolanka labada dhinac ee ku saabsan gacan ku haynta gobolka Gedo dowladda Itoobiya ayaa sii wada faragelinta ay ku hayso Soomaaliya iyada oo saraakiil military u dirtay Hargeysa sidoo kalena dhaqdhaqaaqyo ka bilowday deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya Itoobiya ayaa wafuud sare oo military u dirtay magaalada Hargeysa waxaana hogaaminaya mid kamid ah hogaanada u sareeya militariga dalkaasi waxayna la kulmayaan madaxda sare ee Somaliland oo ay kala hadlayaan meel marinta isafgaradkii kowdii bishan lagu saxiixay Addis Ababa oo Itoobiya u ogolaanayay saldhig military inay ka samaysato deegaanka Lughaye ee gobolka Awdal kadibna ay Lughaye ama Zeylac ka samaysato dekad ciidankeeda baduna ay halkaas saldhigtaan sidaas oo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in xubno sare oo ka tirsan madaxda sare ee Itoobiya ay toddobaadkan ku wajahan yihiin magaalada Hargeysa taasi oo hadii ay dhacdo ka dhignaanaysa in Itoobiya ay sacad ugu bareertay meel marinta qorshaheeda ah in ay bad hesho xoogna kula wareegto qayb kamid ah biyaha Soomaaliya kumanaan askari oo Itoobiyaan ah ayaa jooga xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana la aaminsan yahay in ay ka hor dhamaadka bishan ku aadan yihiin xeebaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya taasi oo xadgudub ku ah qarannimada Soomaaliya
dowladda federaalku waxay ashtaka ka dhan Itoobiya u gudbisay dalalka caalamka waxaana la eegayaa tallaabada ay qaadi doonto xukuumadda Muqdisho kadib marka ay wafuudan Itoobiyaanka ay tagaan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ee hoostaga dowladda Soomaaliya sidoo kale Itoobiya ayaa olole culus ka bilowday gobolka Gedo halkaasi oo ay Itoobiya ka wado dhaqdhaqaaqyo ay ku dhaqangelinayso heshiiska ay la gashay Somaliland kagana hortagayso in dadka gobolka Gedo ay dhigaan dibadbaxyo ay ku diidan yihiin damaca Itoobiya ee ku aadan inay xoog kula wareegto qayb kamid ah biyaha Soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ay dowladda Itoobiya isku yeertay kadibna waxay fartay in gobolkaasi aysan ka dhicin wax banaanbaxyo dadweyne ah oo looga soo horjeedo heshiiskii qariska tuurnimada ahaa ee badda ee Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaare ka Itoobiya uu la galay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kale Itoobiya ayaa heshiis hoosaadyo la gashay Axmed Madoobe iyo Lafta Gareen oo labadaba uu damac kaga jiro inay kuraastooda ku soo laabtaan waxaana xogo hoose ay sheegayaan in Itoobiya ay heshiis qarsoodi ah oo ka madax bannaan dowladda federaalka la galayso dhammaan dowlad goboleedyada si loo wiiqo awoodda dowladda Soomaaliya loona meel mariyo heshiiska Addis Ababa dhinaca kale shacabka gobolka Gedo ayaa cabsi xoogan ka muujiyay dhufaysyo ay qoteen ciidamada Itoobiya kuwaas oo muujinaya in Itoobiya ay isku diyaarinayso dagaal uga imaan kara Soomaalida dadka ku nool gobolka Gedo oo la hadlay warbaahinta waxay xaqiijiyeen in 10 sano oo ciidanka Itoobiya ay joogeen gobolkaasi ay maalmahan arkeen iyagoo markii ugu horeysay dhufaysyo qodanaya ciidanka Itoobiya ayaa maalmo ka hor gobolka Gedo ku kufsaday 2 haween ah waxaana arintaasi ka dhashay carad dadweyne oo kicisay shucuurta shacabka gobolka Gedo maamulka gobolka Gedo ayaa shacabka faray in hoos loo dhigo wararka ku aadan kufsiga ay geysteen ciidanka Itoobiyaanka ah iyagoo ballan qaaday in la xalinayo ehelada dadkii ay dhibaatadu gaartay taasi oo dadka reer Gedo ay aad uga caroodeen Itoobiya ayaa wajahaysa xiisadii ugu cuslayd oo kaga imaanaysa dhinaca Soomaaliya kadib markii ay dadka Soomaaliyeed ka caroodeen damaceeda ku aadan in ay xoog ku qaadato qayb kamid ah biyaha Soomaaliya oo uu saxiixay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland waxaana 18 bishan Uganda ka dhici doona shir ay isugu imaanayaan dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD oo ka arrinsanaya damaca qariska tuurnimada ee Itoobiya ay ku doonayso hanashada qayb kamid ah biyaha Soomaaliya maadaama aanay bad lahayn Somaliland ayaa xabsiga dhigtay wasiirkii hore ee beeraha ee Somaliland oo ka hor yimid heshiiska dhexmaray dowladda Itoobiya iyo Muuse Biixi taliska ciidamada booliska Somaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xariga loo geystay wasiirkii hore ee beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo ciidanku ay soo qabteen kuna xireen magaalada Hargeysa booliska ayaa qiil yaab leh u sameeyay xariga wasiirka oo diiday heshiiskii badda ee Somaliland iyo Itoobiya kadib waraysi uu siiyay TV-ga MMTV ee Hargeysa afayeen u hadlay booliska Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in Axmed Muumin Seed uu soo dacweeyay muwaadin dacwadaasna ay taalo maxkamadda sida uu hadalka u dhigay balse la dareensan yahay in loo xiray mowqifkiisa ku aadan diidmada heshiiska uu Muuse Biixi kaga iibiyay Itoobiya qayb kamid ah badda Soomaaliya sidoo kale wuxuu meesha ka saaray wararka sheegaya in loo xiray diidmadiisa ku aadan heshiiska Somaliland iyo Itoobiya wuxuuna sheegay in loo haysto kiis lacag ah maamulka Somaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu xirayay cid kasta oo ka soo horjeeda heshiiskii uu Muuse Biixi Cabdi la galay dowladda Itoobiya waxaana sidaan oo kale loo xiray wariyaal culimo iyo sidoo kale dad indheer galada oo ka hor yimid damaca qariska tuurnimada ah ee uu Muuse Biixi Cabdi dowladda Itoobiya kaga iibiyay qayb kamid ah badda Soomaaliya wasiirka la xiray ayaa sheegay in ay Itoobiya waligeedba ku taamaysay inay la wareegto magaalada Saylac si ay halkaasi saldhig uga dhigato maadaama ay Itoobiyaanku aaminsan yihiin in Saylac ay iyagu leeyihiin oo boqoradii hore ee dalka Itoobiya ay ka arrimin jireen sidaa darteedna aanay Itoobiya bad u socon balse ay doonayso inay xoog kula wareegto Saylac iyo dhulka ku teedsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Shiinaha iyada oo sheegtay in Taiwan ay u aqoonsan tahay qayb ka tirsan Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha bayaan kooban oo ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu xusay u hoggaansanaanta mabda'a faragelin la'aanta iyada oo hoosta ka xariiqday sida Soomaaliya ay uga go'an tahay kobcinta wada noolaanshiyaha caalamka iyo ixtiraamka madaxbannaanida Soomaaliya iyada oo ka duulaysa ka go'naanshiyaha mabaadi'da ku qeexan axdiga qaramada midoobay waxay u doodaa in aan la faragelin arrimaha gudaha ee dhammaan ummadaha ayaa lagu yiri bayaanka ay Soomaaliya ku garab istaagtay Shiinaha
tallaabadan ay qaaday Soomaaliya ayaa u muuqata abaalgud la xiriira mowqifkii adkaa ee dowladda Shiinuhu ay ka qaadatay xadgudubka Itoobiya isla markaana Somaliland ku sheegtay inay tahay qayb ka mid ah maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka. hogaamiyaasha caalamka qaarkood ayaa dhowaan Taiwan ku ammaanay doorasho ka dhacday halkaasi, gaar ahaan sida tirada badan ee dadku ugu soo baxeen doorashada ka dhacday Taiwan. si kastaba dowladda Shiinaha oo xurguf adag kala dhaxayso Somaliland maadaama ay is-aqoonsadeen labadan dhinac ee aan madax banaanida haysan ee Taiwan iyo Somaliland, ayaa Shiinuhu waxa uu saaxiib dhow ka dhigtay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyana isgarab taagtay madax banaanida Shiinaha, Taiwanna ku tilmaantay gobol ka mid ah Shiinaha. Somaliland waxay dunidu u aqoonsan tahay maamul ka tirsan Soomaaliya halka Taiwanna loo arko qayb ka mid ah Shiinaha. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Banaadir Star Media.